haddii nabadda ceerigaabo aad fadqalalaysaan oo dadka iyaga shacabka xabad ku ridaan oo aad xidhataan kuwii ceerigaabo u dhashay waa kuwan waanuna imanaynaa waynuna isku dilaynaa sidii lascanood baynuna isugu dilaynaa madaxa ciidamada daraawiishta SSC Khaatumo ee gobolka Sanaag General Yaasiin Yuusuf Cali Xuuf oo shir jiraad ku qabtay gobolkaasi Sanaag ayaa ka hadlay dhacdooyinkii u dambeeyay ee ka dhacay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag iyo sidoo kale gaadiid ganacsi oo u kala goosha gobolada Somaliland iyo kuwa SSC Khaatumo iyo Puntland waxa uu generaalku sheegay in 24 saac ee soo socda wixii ka dambeeya aanay aqbali doonin wax gaadiid ganacsi ah oo u kala gooshi doona deegaanada gobolka Sanaag iyo sidoo kale Somaliland waxa uu ka hadlay dhacdooyin ka dhacay maalmihii la soo dhaafay magaalada Ceerigaabo kaas oo lagu dhaawacay haween ka soo jeeda deegaanada SSC kuwa kalena lagu afduubtay generaalku waxa uu xusay isagoo ay hareerihiisa taagan yihiin saraakiil kale oo ka tirsan qaybta gobolka Sanaag ee SSC Khaatumo iyo sidoo kale odayaasha deegaanada SSC in haatan wixii ka dambeeya aan la aqbali doonin isla mar ahaantaasna ay mamnuuc ka tahay isu socodka gaadiidka ganacsi ee u kala goosha Somaliland iyo gobolada SSC Khaatumo iyo kuwa Puntland isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladiisi ka mid ahaa waxaan rabnaa inaan ka hadalno dhacdooyin soo noqnoqonayo deegaankan qaybta Sanaag ka dhacay indhow waxa jira dad ganacsato ah oo u gudbayay dhinaca Somaliland dadkaas oo lagu dilayay qaab aanaysiya ama qabiil ah oo ay ka dhalatay colaadii sool Sanaag iyo cayn ka dhacday dadka waxaanu leenahay oo aanu u sheegaynaa ama maakhina ka soo jeedin ama Puntland ka soo jeedin ama sool Sanaag iyo cayn ka soo jeedin wax dambe oo isu gudbaya oo deegaanka aadaya ama nooga imanaya deegaanka inta nabad la qaado oo nabad imanayso gaariga garowa ka yimaadeen dhuxusha doonaya gaariga wata ee u sii socda deegaanka Somaliland ee Burco waxaan leenahay gaarigaagana waa la qabanayaa wixii kugu yimaadana adaa ka mas'uul ka aanu aragno isagoo wax ka iibinayo ganacsi la aadaya talaabo gacan biraan ku qabanaan tabta horgalada aanu u qabanaan iyagana u qabanaan ilaa nabad laga qaato wax isu gudub la yiraahdo ka nooga yimaada xaggaas sidaas leeg waa xarig waa qabanaan nin walowba gaarigaaga ama hadhow yaan la soo wicin aniga ninka gaariga garow ka soo diraya iyo ka soo diraya boosaaso ee u socda Somaliland ama ninka ceel buu ka soo diraya damala xaga roob war hadeer digniintaada waa qabtaa wax u gudbaya wuxuu ku wajahan kuwa Somaliland u shaqeeya ee wali jooga magaalada Ceerigaabo halkan waxaa maraya rag walaaladooda oo ku laayay qadiyada SSC oo aan cidna ka yeelayn in hebel iyo reer hebel ninka Somaliland u shaqeeya lagu qabto gobolka Sanaag ka soo baxay ereyadan aan ku qabanno wuxuu la marayaa xeer kuwoodaha lagu diray waxaan idin sheegaynaa annagu saabsaana haddaad hore halkan u mari jirteen inaanan aqbali doonin horgal dambe oo deegaanka SSC u soo gudba ama meelaha yimaada qodob kale nabadda aad ku baaqaysaan ee aad leedahay deegaankan waa nabada yaa foodo laga dhalin ku soo saara maxaabiista shalay laga urursaday Ceerigaabo ee garadag loo qaato gabdhaha xabadda lala dhacay dhakhtarada jiifo ku ilaaliya nabadda aad sheegaysaa beesha degta ee Ceerigaabo ee Muuse Ismaaciil waxaan leenahay haddaad haysaan nabad haydinka muuqato ciidamada SSC jamaahiirta halkan maraya haddii nabadda Ceerigaabo aad fadqalalaysaan oo dadka iyaga shacabka xabad ku ridaan oo aad xidhataan kuwii Ceerigaabo u dhashay waa kuwan waanuna imanaynaa waynuna isku dilaynaa sidii lascanood baynuna isugu dilaynaa aysan ahayn nabadda ka shaqeeya kuwa aad xidhateen soo daayay gabadh dambe oo xabad lagu rido haddaan maqalno ka dulqaadan mayno nabadda xaqiina ka xijiya xagga iyaga aad baan uga taxadar oo waa la xijiyay oo waanu u qabsoonahay anagu maamulka iyaga foodana mani laakiin nabadda haddaad xakameyn weydaan waanu idinku imananaa annagana awalba nabad maanaan haysan waa dhibanayna dhimasho joog baan nahay wax dhulka naga yaalo ilaahay wartay ma jiraan wassalaamu calaykum allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar